marka taantaasaan ku dhaafaya waxaan kaloo kelmad ka odhanayaa nimayahow dadkii waxaa lagu waalay waxa dhul la yidhaaho qayladaa isu yeedhay weliba anigu beri dhaweyto waxaan umaa inaan meel jiray oo airboortkan Hargeysa salaadiin iyo siyaasiyiin dad masaariifsan jiray umaan ku dhawaad meesha airboortka weeye lagu turki maayo dagaalka meeshaa ka socda iyo qaylada ka socota suldaan aadanna waa maqlayaa balse waxaa u dhegaysta xaaladda nin suldaana oo la sudaanka guud baa xaaloo hadlayay habeenkii ka soo horeysay waa hadlayay marna Faysal baa hadlayay waxaa la isku hayaa waxa weeye dadkuna waxay iska jecel yihiin hada jeer xukuumadaha dhaliilaan oo ilaahan waxbaa la cunay hada jeer waxay qofka kursiga fadhiya iyo xukuumadaha waa la iska dhaliilaa taasi oo dib ma laha laakiin airboortka Hargeysa miyaynu qaybsanaa si airboortku ahaanaya weeye inta la isku hayaa muxuu ahaanayaa suldaanada faaraxow haddaba la hadal ninka suldaanka guud ee hore walba qaylinaya Faysal cali waraabo إلا دتك والله قرنا قاعد دتك دل إسكمد ليه 5 كيلومتر بقى إيربورت في النعوة ويده حتى وإيربورت عاصمة ده صدق بقولة متر بوفين سكوتشرا ملحوينه دكتور صوص عرب ولينا على كونفرنس وما صار في كلام كيلومتر يبر سياسية سلطانية نمك على الله هو البقية يرى واقعينا مرك اللي هو ورك الدار وحوله وزير كهذا يقول في بوي فلا توجه كخلاصار مش هذا إيربورت كده تكلم وحوي حاليته habeen barkii horta dawladda saxaafadda waxaan ka codsanayaa dadka qaar habeen barkii ha wareysanina habeen barkii ha wareysanina waayo dad subaxii wax booyo kala wada dheer kala wada kaana wararkiisu wada dhaafaya aad baan tahay idinka codsanaya qodobku waxa weeye nin suldaanada hadlayay wuxuu wasiirka hawlaha guud xabaashii kuul gadid iibiyey madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu wasiirka inuu xabaashi ka qabto horta kusii fogaan maayo waxaan u shaxayaa waxaan saxayaa xabashaa noo timi dad muwaadiniina baa noo yimi waxay nagu idhaahdeen weliba dadka ehelka ah ee ka soo jeeda magacaa la sheegay waxay dhahaan xabaashi halkaasa dad shicib baa la siiyey meel ku dhow waa lagu soo turkay wasaaradda hawlaha guud wax ka qabato waxaanu sunnay wasiirka arrimaha gudaha markaan wasiirka arrimaha gudaha sunnay waxaan la hadalnay badha saabka berbera iyo maayarka berbera waxaan ku dhulkaa iyo cabashadaa ka warrama wuxuu maayarku nagu yidhi dhulku xabaalaha kuma dhowaa waxaana waraaqa fayl sameeyey maamulkii iga horreeyey baana fayl sameeyey marka waxaan ku nihi cabashaa ka timi waa qubuurihii qabo ajdaadii iyo awowayaashii inta la isugu imanaya la kala xadaynayo waxaa laydin amraya inaad joojisaan qabuur beerhaanayana way joojiyeen markaan saa uga hawlgelayna dee dadkii cabanayo dhamina way nala joogeen xukuumadda oo dhami aanu la hadlayna amarka bixinayna ninka habeen marka kacay ee waraaqa tv-ga qaylinaya eela wasiir baa bixiyey bal iyadana waxaan u sheegaynaa bal dadka uu had iyo jeer dee dhaqankuna dhaqan buu leeyahay bal dadka uu suudaanka u yahayna bal ha saxaano hala taliya ama had iyo jeer wuxuu ku hadlayo ha habeeyaan saxaafadduna waxaan idinka codsanayaa habeen barka waraysiga inaad ka daysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu